kulanti wanaagsan khiyaarta qaaliga meel walba aad ka joogtaan daafaca caalamka qodobada wararkeena fiidnimo ugu doorka roon ee aad ku maqli doontaan waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo kulan la yeeshay ganacsatada Soomaaliyeed Puntland oo magaalada Kaalgacyo ka wada kulamo lagu heshiisiinayo beelo dagaal dhexmaray hogaamiyaha SSC Khaatumo oo kulan la yeeshay taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed hawlgallo la xiriira dhanka amniga oo xaafado kamid ah Jowhar ismaamul goboleedka Hirshabelle laga sameeyay dawladda Iran oo soo saartay digniino ku aadan wax ay ku sheegeen isbaahaysiga tiirarka iska caabinta dawadayaal qodobada iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaad ku maqli doontaan wararkeena fiidnimo ee caawa وهجاج وركي أو فاس رئيس الوزراء دولة فدرال كالصوماليا حمزة عبدي برة أيا جناح ستة الصومالية اللي يشكلون كأدن دور كأي كليين جهين تدولة نمذا عصر جاي الصوماليا رئيس الوزراء أيا تلمامي مهمة عائلة ده إن هاي دولة يقوى جار كلولة هاي عيسلا كان قاعدان سوى ذكر لغو حقيقي هيك سيجا فوق هرمر كادل كالصوماليا وحين الدولة ديرة صار سايو رسيد أيو أبوري لهاي شوي كأبا ganacsi gaar loo leeyahay halkaas oo halabuurada ganacsiga lagu dhiirigeliyo ayna ku kobcaan maalgashiga dibadeed iyo kuwa gudaha ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa u sheegay madaxda iyo mulkiilayaasha ganacsatada gaarka loo leeyahay baahiyaha loo qabo in la sameeyo isbedel dhan walba si isbedelkaas looga midho dhaliyana ay lagama maarmaan tahay in la helo ka go'naansho bulsho ma dambaystii ra'iisul wasaare wuxuu kala dardaarmay ganacsatada inay kaalintooda ka qayb qaataan amniga horumarka dhaqaalaha iyo bulshada doomiyaha gobolka mudug Puntland Faysal Sheekh Cali ayaa xafiiskiisa ku qaabilay dalada dhalinyarada ay horumarinta gobolka mudug waxaana goobjoog ka ahaa isku duwaha wasaaradda amniga gudaha dalada ayaa waxay ka warbixisay shaqada nabadeed iyo isdhexgalka oo ah in muddo ay ka wadeen gobolka iyo gaar ahaan magaalada Kaalgacyo iyo in ay wali ka go'an tahay si xoojinta hawlaha nabadeynta gudoomiyaha ayaa ku bogaadiyay shaqada ay ka wadaan gobolka isaga oo u ballan qaaday inuu ku garab taagnaan arrimaha nabadeynta iyo isdhexgalka gudoomiyaha ayaa waxa uu guud ahaan dhalinyarada magaalada kula dardaarmay inay sii xoojiyaan arrimaha la xiriira nabadeynta iyo isdhexgalka arrimaha bulshada hogaamiyaha SSC Khaatumo Cabdiqaadir Aw Cali ayaa kulan la yeeshay taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Generaal Maad Abdiraxmaan Aadan oo ay ku weelinayaan saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada Soomaaliyeed ee asluubta kulankan ayaa ahaa is-xog waraysi ku aadan xaaladda guud ee ciidamada SSC Khaatumo iyo xaaladda xabsiyada deegaanada iyadoo la iska xog waraystay si taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed gacan uga siin lahaayeen horumarinta taliska asluubta ciidamada SSC Khaatumo taliya Maad Abdiraxmaan ayaa xusay wax kasta oo awoodooda ah in taliska ciidamada asluubta SSC Khaatumo ay la garab taagan yihiin diyaarna u yihiin wada shaqaynta iyo horumarintooda ciidamada ammaanka magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle ayaa hawlgallo amniga lagu xaqiijinayo waxay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Jowhar wasiirka amniga dawlad goboleedka Hirshabelle Cabdiraxmaan Khayre ayaa kormeeray baraha kantaroolada iyo buundooyinka laga sugo amniga caasimadda Jowhar ee maamul goboleedka Hirshabelle kormeelkan ayaa ahaa mid looga gol leeyahay si xoojinta iyo adkeynta amniga caasimadda Hirshabelle ee Jowhar sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda amniga Hirshabelle magaalada Jowhar oo ah caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay dilal loo geystay mas'uuliyiin iyo ciidamo waxaana mararka qaar hawlgallo ka fuliya amniga magaalada Jowhar afayeenka dawladda Iran Maxamed Bagad ayaa sheegay hadii dagaalka ka dhanka lugta Gaza uu bilowdo in Iran albaabada u furi doonto cadaabka dhan Israa'iil sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Iran Abdullahi ayaa sheegay inay dhici karto in weerarkan ay qaadaan kooxaha iska caabinta ka dhanka Israa'iil oo ay ku jiraan Iran Suuriya iyo Xisbullah sheegayna inay arrintani noqon doonto mid faraha ka baxdo oo si ballaarata afayeenka garabka ciidamada Hamas Abu Ubayda ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan maxaabiis fara badan oo dhalasho ahaan iyo dal ahaanba kala duwan waxa kale oo intaas uu ku daray inay xaqiijiyeen 22 kamid ah maxaabiistii ay hayeen inay ku dhinteen duqeymaha Israa'iil ay ka geysanayso marinka Gaza